السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين. walaalaha ku xiran channelka ilaahay meel walbo joogtaan ha idinku nabad yeelo. ilaahay bay mahadoo dhan u sugan tahay, idinkana aad baad u mahadsantihiin sida aad khayrka noogala qayb qaadataan xilli uu fitankii batay oo dadka ay waxyaabo khiyaali ah waqtigooda ku bixiyaan. waxaan alla ka baryaynaa inuu dulqaadka noo saacidiyo nana waafajiyo wax adduun iyo aakhiraba anfaca. maanta waxaan baran doonaa haddii Alle ka raali noqdo duco aad u qiimo badan. qofka muraadka leh ama dhibaatoonayo culayska uu qalbiga ka dareemayo sida ilaahay loogu sheegtay ee loo baryo. xeer ducada ka hor waxaan idinka codsanayaa in aad u duceysaan gabar ka mid ah walaalaha channelka oo na soo weydiisatay duco hooyadeeda oo aad u xanuunsan. ilaahay waxaan uga baryaynaa in gabadhaas hooyadeedu caafimaad taam ah siiyo, xanuunkana ka dulqaado, dembi dhaaf nooga dhigo. isla gabadha waxay ka sheeganaysay khilaaf reerkeeda ka dhex jiro. ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu arrimaheeda u hagaajiyo, hooyana u caafiyo, sida ay jeceshahay khayrka ahna waafajiyo. dhammaan walaalaha channelkana inta muraadla ilaahay muraadkooda ha u sahlo, inta xanuunsanna rabbi ha noo caafiyo. ducadeena maanta aan baran doono duco aad u qiimo badan. waa qofka oo ilaahay u sheegaya xanuunada iyo murugooyinka gaarka ah uu dareemayo. ducana waxaa ugu fiican midda qofka uu iska warbixiyo oo uu u hadlo sida in la yiri hadal oo kale ama sheega waxaad rabto. ducadan qofka markuu akhrisanayo ilaahay wuxuu u sheegayaa in qalbigiisa uu garaacmayo, in murugo darteed uu xamili la yahay waxa haysto, in uu qofkan leeyahay rajo uu rabbigiis ka sugayo iyo riyooyin uu ku taamayo inuu gaaro. wuxuuna tala saaranayaa Alle in uu ugu filnaado arrinta uu doonayo, kana kaafiyo wax kasta oo hadda haysto. Allena uu yahay midka ugu wanaagsan inta arrimo loo dhiibto. ducada ayaan markaana akhrinaynaa. waxaad dhahaysaa: ربي لا أحد يسمع صوت قلبي خيرك ولا أحد يعرف آمالي وأحلامي سواك. ربي إني توكلت عليك فأنت حسبي وكفايتي ونعم الوكيل. مركلا ينكو حلينينا. ربي لا أحد يسمع صوت قلبي خيرك ولا أحد يعرف آمالي وأحلامي سواك. ربي إني توكلت عليك فأنت حسبي وكفايتي ونعم الوكيل. دعاء معنى هذا واسدان: ربي لا أحد يسمع صوت قلبي خيرك. ربي جيجي ومجره قف مقلي كراعتك قلبي جيجه أو أن أذيق أهين. قلبي وحوليه عضت qof kastoo naga mid ah waxbuu niyada ka rabaa. wax waan sheegnaa oo dadka waan la wadaagnaa, waxna waan qarinaa, laakiin ilaahay unbaa labadaba garan karo. maanta haddaad aad u murugoonayso ma jiro qof intuu ku fiiriyo dhihi karo hebelow ama heblaayo waxaas iyo waxaasaad u baahan tahay. laakiin waa laga yaabaa qofka inuu ku dareemo in aad si uun u fikirayso isagoon ogaan karin waxa dhabta ah ee kaa maqan ama aad ka fikirayso. codadkaas oo dhan marka ilaahay baa garan karo. mararka qaar qofka markuu aad u murugoonayo wuu garaacmaa qalbigiisa, hurdada wuu diidaa, maanta dhan wixii buu soo celcelinayaa. ilaahayga marka intaas og uusa ibni aadanka ogaan karin ayuu qofkan la hadlayaa. waxa kale uu leeyahay: walaa axada yacrifu aamaalii wa axlaamii. ilaahayow ma jiro qof ogaan karo ama garan karo rajooyinka aan qabo iyo riyooyinka aan ku taamayo oo aan adiga ahayn. rabbi innii tawakkaltu calayk. ilaahayow ani adigaan ku tala saartay, fa anta xasbii. adigaana igu filan, wa kafaayatii oo kaafiyahayga ah, wa nicma alwakiil. inta arrin loo wakiishana adigaa ugu wanaagsan. qiyaamuleylka oo kale qofka markuu usoo kaco iyo salaadaha gadaashooda waa duco aad u wanaagsan. haddii uu qofka ku duceysto ilaahay wuu aqbalayaa. kahor intaada ducadan akhrinin marka hore ilaahay ammaan. ilaahay waxaan ka baryayaa in qof kasta oo ducadan ku duceysto uu u aqbalo oo uu ku irsaaqo waxa uu ku doono. waxaan arkaa qoraal uu isoo qoray wiil ka mid ah walaalaha channelka. wiilkan xanuun buu sheeganayaa iyo in fahanka uu ku adag yahay, murugo daran uu dareemayo.
ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu caafimaad ku irsaaqo, fahanka u furo, murugtana farxad ugu bedelo. guud ahaan inta dhibaataysan ilaahay dhibtaa ka qaado. muuqaalkan intaas ayuu ku egyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.